markii labada qabiil u horreeyay ciidamo ku caawiyay oo ciidanka ugu horreeyo ku soo tabarucay waxay ahaayeen habar Yunis iyo habar Jaallo kadib waato buuho la agteeda dagay qabiiladii kale ku soo biireen bahgari oo asaga ka dhashay iyo cali gari oo reebtigi ahaa ku soo xoojiyeen marka dambana daraawiishda Soomaaliya oo dhan iska noqotay oo hadda 100 sano kadib qabiilada laga dhigaa in daraawiish qabiil gooni ahayd laakiin sayidku Soomaaliya oo dhan uu wacday bimaal ayaa xataa ku jiray oo soo galay habar gidira ku jirtay majartayna ku jiray cid walba ku jirtay oo soo galay hadda waxa jira nin la yiraahdo la taliyaashiisa kamid oo aan ka harin oo galkacay ka soo jeeday ilaa uu iimay ku dhintay uu la socdaa nin habar jeclana waa la socdaa nin majartayna waa la socdaa kama harin ilaa uu dhinto labadii dhow garab taagnaa dadkii dhan waa ka hareen caa'iladiisa ka hartay reer Sheekh Xasan Nuur Maxamed Cabdulla Xasan Nuur Allah reer Xasan Nuur qaarkood ka haray sayidka ayagu waa la socdaan laba la taliyo u yimaad agtaagan ilaa uu ka dhinto email la galeen waa la socdaan dhowr la oran jiray abshir dhowr ninka majartan ma garan marka ilaa meeshaas sayidku uu hawshiisa sidaas ay ahayd xiriirkii marka oo Yurub la lahaa marka bilowgii hore intuu ciidamo aruursiga iyo waxaan ku jiray dagaalkiisuna deesaan hadda ka hor tilmaamay maba ku wajahneenba Yurub iyo British bilowgii hore waa inuu challenge waa jiray oo uu arkay gaalka inuu meesha gardaro ku joogo bilowgii hore governor ki fadhiyay Berbere asoo soo fiicnaayeen sayidku markuu ciidamada aruursada daraawiisha may bilowgii hore maxkamadna waa sameeyay islaami ah oo dadka kala garsoorta maxkamadaas wixii ay qaadi weydo oo ama abiil ka qaata ama ay gartooda si u maareen weydo Berbere Ingiriiska u diri jirtay waa qoranta Ingiriiska sheegayo anagu noo soo xawilay wada shaqayn fiican aan nagala dhaxayso waa ku 899 ka hor dhowrka sano ka horeeyay ama dhowrka bilood ka horeeyay wada shaqaynta anagii Maxamed Cabdulla Xasan Cabdulla Xasan u yaqaan anaga Cabdulla Xasan waa isku fiican leeyay marka dambe dagaal ku bilaabeen oo asagii ayaga gardarnaa bridge-ka gardarnaa oo ku duulay waxa sababay markuu hub urursi ku jiray hub asoo urursanaya qoray niman laba nino askartii Ingiriiska ahaa ayaa qoray Ingiriiska ka soo qaatay oo ka gata asaga qoray qiimo badnaa marka qorigii dhaynta warqad u qoreen governorka warqad soo qoray soo celi waa laga soo xaday qorigaan cidii ka xaday u raadso yiri Sheekh Maxamed Abdulla Xasan meeshaas xabadoodu bilaabatay waa ku soo duuleen iska dhicintiisay noqotay mudayna isla hardamayeen muddo 20 sano inkastoo dhextaal jiray dhowr sano eel uu fadhiyay oo heshiis la kala galay ay jirtay Bestaloza treaty loo yaqaan 1945 la meel mariyay ilaa iyo 12 heshiis dhowr sano shaqeeya jira oo Ingiriiska iyo sayid kala galeen oo Talyaanigu dhexdhexaadinay inaan waxba la soo raacan lana kala joogo ma ku guuldareysteen marnaba isku dayeen ama sayidka iyo daraawiishtu in ay Ingiriiska heshiis oo xal aan xabad lahayn dhowr mar offer la siiyay sayidka loo offer gareeyay in wada hadal la furo sayidku laakiin waa diidanaa cid kaliya ku ogolaaday in wada hadal la yeelo Talyaaniga ahayd oo marka Ingiriiska dagaalka xoog leh ku wada jireen iyo Axmaarada oo aydan Ingiriiska u soo raacday afar dulana lagu qaaday ninkan waxa la dhahaa for expeditions waxay u yaqaanaan afar jeer la soo weeraray oo weerar iyo meel walba laga soo galay kii u dambeeyay cirka ahaa laakiin weerar all out war ah ay ku soo qaadeen afar jeer mar koowaad soo weeraran wajibi mar labaad soo weeraran waa ayaga la ku jabay markii saddexaad waxay u soo wateen Axmaarada 15,000 oo ciidan Axmaara ah ayaa jigjigadan martay oo ilaa war dheer iyo walwal tagtay gabayo sayidku sheegaan qabiilada kamid ah sayidka qabiilka weyn oo asagu ka dhashay kuwa kamid ah Axmaarada wada gabay ku sheegay yiri kuwaas ay ugu jiqsiinay Axmaarka marka meeshaas ku muujinay inaysan daraawiish qabiil ahayn hal qabiil ku wada jirana male hal qabiil ka soo wada horjeedana male qabiilada inta waa jireen qaar kuwa hadda aan ku tiriyay sayidka la socda dhinac kale ka soo jeesanaya jiray oo Ingiriiska soo waday marka kii afraad nawaakide oo sayidku ku galay nugaal ay oo ku galay oo u gambiyay intay war dheer iyo walwaal iyo dhulkan dhexo dhan ay ku xiratarareen kaas xiisa badan u lahaa oo hobby ka soo dageen afar jiha looga qaadan weerarka kii afraad waa kii la rabay in lagu qabto asaga Berbere kuwa ka galay hobyo kuwa ka galay halkan kuwa ka galay dhaxdana oo Talyaaniga xiraa liido soo fakan hobyo markuu soo dagay waxa joogay suldaankii wiilkiisa Suldaan Yuusuf Ali Kennedy wiilkiisa Ali Yuusuf markaas meesha joogay odagay asaguna waa ka xan yihiin waxaan laakiin dadkii deegaanka la yiri geelkeena
dadka deegaanka hobyo deganaa laba qabiilaa deganay geel keenaa la yidhi awr lagu raro hubkan ingiriiska ee lagu geeyo ilaa iyo wareeb oo saldhig ka dhigtay dadka deegaanka waa diideen waxay dhaheen nin muslim ah oo gaala ku duulayso annaga geel kama gedi karo waa qoranta ingiriiska qoray waa noo diideen uu leeyahay dadka deegaanka waxay dhaheen annaga gaal duulayo muslim u socda waxba kuma darsan karo geeli wixii la carreen iyo lo iyo ari waxay haysteen waa diideen meesha waa markaas marka la xirayo waa maqasho Soomaa Yuusuf Ali Kennedy suldaankii iyo wiilkiis in la xirayo Eritrea mar la geeyay markaasay dhacday لكن حسوا رخصة إن مبدأ دراويش في الصومالية ولا مقود قنوي وحسوا دور عريمات waxa ugu muhiimsanaa hogaaminta sayidka oo ahaa nooc ku cusub Soomaalida noocyo hore oo taariikhdooda ku jira oo dad dictatorra ay soo baxeen oo ay dadka maquuninayaan oo dadkuna u jabinayaan waxa kamid ah boqortooyadii u juuraan oo kale markii u dambeysay ayaa waxa qabsaday nin umada canshuur badan ku rogay dadkina yara salciyay waata qabiilo inta ku duuleen ay jabiyeen mar walba Soomaaliya taariikh waxay u lahayd hadii nin inta soo kaco uu xoog ku qabo maago inay jabiyaan leadership-ka aqbalayso waa leadership-ka u qabo compromise ku socdo iyo consensus ku wado kaasa mar walba ku dhex dhiibana Soomaalida laakiin kan isku day inuu xoog ku qabto ama dilo waxba kama faa'iido marka sayidka horta marka koobaad in lagu wada qanci waa waxa ugu wacnaa leadership attitude-kiisa qaabkiisa hogaamineed ayaa horta wuxuu ahaa qaab Soomaali dib waaga joogtay ee la yaaban tahay dawaa maqashay garta u qaado ama go'aanada u gaaro inay kamid ahayd hebel wax joogay oo qofkii la dilayo waxyaabaha ugu badan ee ka dib beesha asaga ka dhashay kamid tan asaga uu dhashay oo rabtay inay taageerto garab u noqoto waxyaabaha ay ka dideen ay kamid yihiin wax joobadan intuu dhex yimid hebel wax joogay macnaha qofkii mabdiisa diidan ama qof mawqif